أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. sheekadii nebi yuusuf nabadgelya korkiisa ha ahaatee waa qaybtii koowaad ee sheekada ah. waagii baa bariyey, qorraxdii baa baalasheedii dunida ku wada ekaysay. yuusuf oo riyo aad u macaan xalay ku riyooday ayaa toosay oo gogashii ka soo booday. dharkiisii kolkuu xirtayna wuxuu isaga oo qoslaaya oo faraxsan ku orday aabbihiis nebi yacquub. markaas buu ku yidhi, aabbow, xalay riyo aad u wanaagsan baan ku riyooday, riyo rayrayn i gelisay oo ay laabtaydu ku diirsatay. waxaan arkay 11 xiddigood, qorraxda iyo dayaxa oo ii sujuudsan. wejigii nebi yacquub ayaa mar qura iftiimay, sidii ruux wax wanaag badan loogu bishaareeyey ayuu u dhalaalay. farxad buu la kala batay. kolkaas buu inankiisii ku yidhi, maandhow, waxa aad aragtay waa riyo dhab ah, waa riyo sii xoojinaysa dheeraadkii iyo khayrkii aan aniguba awal hore kuu saadaaliyey. waxaa lagugu bishaareeyey aqoon uu eebbe gaar kaaga dhigi doono iyo barwaaqo uu kuu ebyi doono, siduu hadda ka horba ugu ebiyey aabbayaasha ibraahim iyo isxaaq. ha yeeshee riyadaada walaalaha ha u sheegin. waad og tahay sida ay uga masayrsan yihiin jacaylka, maamuuska iyo xanaanada gaarka ah ee adiga iyo inahooyadaa aad igu qabtaan, ilaa maanta marka ay labadiinna ka sheekaysanayaan arrintoodu faq, xan iyo sarbeeb uunbay ku eg tahay. haddiise aad u sheegto wixii aad xalay ku riyootay, xasidnimadooda iyo nacaybka ay kuu hayaan dibadda ayay ula soo bixi doonaan. way kuu tashan doonaan, dabinna dhibaato ayay kuu maleegi doonaan. waxaana dhab ah shayddaanku si deg deg ah inuu taas ugu dhiirin doono, shirqoolkoodana ku geesinimo gelin doono. wuxuu yuusuf maalintaa ahaa wiil si wacan u koray oo inta rabbi qurux ugu deeqay aan indhaha loo dhammayn karin. isaga oo gabana ayay hooyadii raaxiil dhimatay. benyaamiin oo ay iskubaha ahayeenna 18 jir ayuu markaa ahaa. waxay dhimatay markii xanaanadeeda iyo qalbigeeda naxariista badan ay ugu baahida badnaayeen. sidaa darteed ayuu yacquub labadaas rajay jacayl gaar ah ugu muujiyey, xanaano iyo dhaqaalayn aan lala wadaaginna ugu fidiyey. jacaylkaas iyo xanaanadaasi riyadii yuusuf kadib ayay sii kordheen. inkastoo uu yacquub inuu dabool saaro isku dayi jireen, haddana walaalaha kale kama qarsoonayn maamuuska uu odaygu u hayay yuusuf iyo benyaamiin. xasadnimo ba'an oo ay wiilasha u hayaan ayaa ka meel weyday. masayr baa beerkoodii inta googooyey kala dhantaalay. nacayb baa jiif iyo hoyaadba u diiday. golo ay ku kulmi jireen ayay dabadeed isugu yimaadeen, iyaga oo ka tashanaya wixii ay yuusuf ka yeeli lahaayeen. midkood ayaa inta hadalkii ku hormaray wuxuu yidhi, warsow ma aragtaan aabbaheen yuusuf iyo inuu hooyadii inuu naga wada jecel yahay oo ay dhammaanteen labadoodu ay nooga dhow yihiin. garan maayo waxa annaga nagu diray. bal waa maxay waxa uu annaga noo qadarin la'yahay ee uu qiimahayaga u arki la'yahay? miyaanaan yuusuf iyo benyaamiin annagu ka da'weynayn? miyaanaan labadaba ka xoog roonayn kana waaye aragsanayn? sow annagu goor walbaba uma adeegno, howlihiisa oo idilna uma qabanno. bal muxuu ugu hayaa jacaylka gaarka ah? maxay ku mutaysteen? ma sharaf bayna dheer yihiin? mase hooyadood raaxiil ayuu ka jeclaa kuwii annagana dhalay? oo hadday hooyooyinku kala fiican yihiin, maxay tahay eedda ay carruurtu taa ku yeelan karaan? dhabtii taasi waa eex cad, waana gaf aad u muuqda oo caadiyaa leh. kii labaad ayaa yidhi, jacaylka uu yacquub u hayo yuusuf iyo in hooyadii waa jacayl qoto dheer oo qalbiga ugu tallaalan sida ay faruhu gacnaha ugu tallaalan yihiin. haddii aan u tagno oo aannu wax ka weydiinno sababta ay wiilashaasi jacaylkiisa gaarka ah ku muteen, wax aan ka dheefi doonnaa ma jiraan. jawaab aan ku qanacnana kala soo laaban mayno. maxaa yeelay jacaylku waa wax rabidda nafta ka adag. lama diidi karo, lama bixin karo, xoogna laguma qaadi karo. waa hiyikac awoodda caqliga ka sarreeya. inta uu yuusuf ina dhex joogo, isaga iyo ina hooyadii waxay fadhiyi doonaan inta u dhexaysa qalbiga yacquub iyo xoobkiisa. daawo qura ayaynu kaga caafimaadi karaynaa cudurkan iyo hamigan aynu la hoyan weynay lana harsan weynay.
waxaan ku talin lahaa yuusuf inaynu dilno ama inaynu geyno meel geri go'an ah oo dugaaggu ku cuno dabadeedna aan ku aasno bacaadada lamadegaanka. markaas oo keliya ayaa innaga iyo aabbe waxa inoo dhexeeyaa ay soo yaraan karaan amaba ay meesha ka bixi karaan. qalbigiisa ayaannu sidaas ugu dhowaan doonnaa. jacaylkii awal hore aynu ka weynay ayaynu sidaas kula soo noqon karaynaa. dabadeedna eebbe ayaynu dembi dhaaf weydiisan doonnaa. sidaasna duul wacan oo agtiisa ku wanaagsan ayaynu ku ahaan doonnaa. yahuuda oo ugu ra'yi wanaagsanaa uguna garasho dheeraa ayaa yidhi, innagu inamadii rasuulka yacquub ah ayaannu nahay. raggii ibraahim alkhaliil uu awoowaha u ahaa ayaannu nahay. caqli iyo waxaannu leennahay diin, dilkana garaadku ma oggola, waana fal ay shareecadu diidan tahay. yuusuf waa wiil aan inna waxba garabsan. dembi uu galay, gaf uu ku kacay iyo xumi uu sameeyey midna lama sheegi karo. haddiise inaad iska fogaysaani ay go'aan idinka tahay, waxaa jira ceel baytulmaqdis ku yaal oo kii beledka u socda iyo kii ka soo baxayaaba ay ku kulmaan. ceelkaa ku rida. qolo socoto ah ayaa inta aragta qaadan doonta, meel fogna la qaban doonta. haddii aynu sidaas yeelno, waxaa isku mar inoo suuroobi doona laba arrimood: yuusuf oo sidii aynu rabnay inaga fogaada, iyo innaga oo ka badbaadna dembiga iyo ceebta dilkiisa ku sugan. taladaas ayay u guuxeen. waxay go'aansadeen arrinta inay sidaa u farsameeyaan, shirqoolkoodana ay tabtaa ku fuliyaan. iyadoo falka ay maaggan yihiin uu hawaawigu u qorxinayo, shayddaanna uu dhab u dhiirigelinayo, ayay kolkuu waagi bariyey aabbahood u tageen. waxay ku yidhaahdeen, aabbow, horta maxaad yuusuf noogu aamini la'dahay? waa walaalkayo oo waa xubin naga mid ah. annaga oo idil wiilashaadii ayaannu nahay. jacaylkaaga iyo xanaanadaada ayaannu giddigayo ku wada naaloonnaa. waxaan kaa baryaynaa berri inaad nagu darto oo aadna raaciso. hawada wanaagsan, qorraxda diirimaadka leh iyo berrimada cagaaran ee quruxda badan ayaannu rabnaa inaannu geyno. annagu intaannu ariga la joogno oo aannu dhulka tabcayno ayuu isna iska cayaari doonaa oo iska boodboodi doonaa. fiidkii ayuu kuu iman doonaa, isaga oo ooga ahaan caafimaad qaba oo maskax ahaanna soo raaxaystay. haddii aad nagu darto waannu ilaalin, indhaha ayaannu ku hayn. haddii qoonsimaad yimaadana naftayada ayaannu ku furan doonnaa. yacquub oo waxa soo aadan iyo dhibaatada imaan karta ka cabsanaya ayaa yidhi, naxdin iyo murugo waxaa igu ah yuusuf oo indhahayga hortooda ka fogaada, joogana meel aan ii dhoweyn amaba iga durugsan. waxaan ka baqayaa intuu idin raaco, idinka oo aan u dhug lahayn, inay yeydu cunto, dabadeedna walbahaar aan iga hadhini uu sadkayga noqdo, oo ilmo aan dhammaad lahayni ay xirribahayga ka horto. waxay yidhaahdeen, sidee bay yeydu u cuni kartaa annaga oo kooxa, oo weliba mid taag yar iyo mid tiricsani aanu nagu jirin? waxa aad ka baqaysaa haddiiba ay dhacaan, annaga ayaa kuwa hoogay oo ba'ay noqonayna. yacquub baa markaa ku jawaabay, kal iyo laab haddaad u dhowraysaan oo aydun indhaha ku haynaysaan, idinka yeelaye bal ha idin raaco wiilku. waxa aad falaysaan oo idilna eebbe ayaa si dhab ah u wada og, ulana socda. waagii baa beriyey. yuusuf bay kolkaa kaxeeyeen oo xaggii ceelka u daadihiyeen. markay dul joogsadeenba niyaddoodii ayaa soo ifbaxday. xasadnimadii laabtooda buuxisay ayay qarsan waayeen. qalbigoodii baa naxariistii laga siibay. kolkaas buu dhagaxoobay. iyadoo uu nacaybku maanka ka qaaday ayay gashigii ka siibeen oo ceelkii dalaq ku siiyeen, isaga iyo maqaadiirtana isaga tageen. ilmadii kululayd ee uu daadinayey way ugu dabci waayeen. baryadii badnayd ee xanuunka lahaydna way ugu damqan waayeen. gunta ceelka markay ku hubsadeen ayay isu arkeen niman guulaystay. niman cadhadii laabtooda sidaysay biyo qabow lagu daadiyey. niman qalbiga iyo jacaylka aabbahood iyagoo haatan yeeshay kuna keliyaystay. maantaa dabadeedna aan cid kale ka bursan doonin, lana wadaagi doonin. waxay u maleeyeen yacquub iyo wiilkiisa inay maalmaha iyo habeennadu kala dhex geli doonaan. waxay la ahayd odagu kolkuu yuusuf waayo inuu iska iloobi doono oo jacaylka uu u hayo uu kooda ku beddelan doono. ha yeeshee malahooda male khasaaray ka soo qaad. shax bay degeen. waxaase ka adkaa shaxda iyo qorshaha eebbe, taasoo iyagu aysan taladaba ku darin.
wixii ay ugu sheekayn lahaayeen intay diyaarsadeen oo hadallo iyo erayo beena isa saarsaareen ayay goor ay fiidkii tahay aabbahood yacquub u yimaadeen. oohin aan jirin ayay durba iska keeneen si warka ay u sheegi doonaani u noqdo mid run loo qaadan karo. dhiig been ah gashi ay soo mariyeen ayay soo hordhigeen iyada oo ay la tahay taas inay ka dhigan karaan markhaati ay doodooda ku toosistaan. waxay yidhaahdeen, aabbow wixii aad ka baqaysay ayaa dhacay, dhibaatadii aad ka yaabaysay ayaa ina asiibtay. alaabtayada intaannu yuusuf uga tagnay ayaannu intayadii kalena tartan u baxnay. fili aannu mayn yeygu inuu yuusuf waxyeello la maagan yahay, isagana soo beegsan doono. inuu wiilku keligii yahay markuu arkay ayuu inta soo weeraray cunay. wuxuu nagu jirrabay murugadan ay laabtayadu la hogmayso ee aannu la qarraacansannahay iyo dhibcaha ilmada ah ee ay indhahayagu hoorinayaan. kani waa gashigiisii, waxa ka casina waa dhiiggiisii. nalamase aha in kastoo aannu runsheeg miirannahay inaad warkayaga dheg u dhigayso. durbadiiba yacquub wuxuu gartay wixii ay faleen, garaadkiisa ballaaranna wuxuu ku kasay wixii ay maleegeen. wuxuu ogaaday rabbi inuu inankaa yar u qadaray arrin weyn oo inuu gaaraa ay lama horaan tahay. isagoo intaas ammaanka ku haya ayuu yacquub ku jawaabay, taas waxba kama jiraane, naftiinna unbaa xuma idin tustay, xasidnimo ayaana idinka meel weyday. aniguna waxaad fasheen iyo sirtiinnu intay soo dibad baxayaan waxaan kaashan doonaa samir wanaagsan. waxaan eebbe ka baryayaa inuu iga kaalmeeyo si aan dulqaad ugu yeesho beenta aydun tilmaamaysaan. waa kaas mugdiga ceelka yuusuf hadda ku jira. waa keligiis cad oo madow. waa shib iyo shanqar la'aan. waa shirrabaad inankan wanaagsan lagu eegaayo. eebbana dhibaatooyin kala duwan ayuu ku shirrabaa addoommadiisa daacadda u ah. waxa uu ku fiiriyaa kadeed kala jaad ah, iyada oo loola jeedo adkaysi inay u yeeshaan arrimaha waaweyn ee loo diri doono iyo xilka culus ee dhabarka loo saari doono. ma jirin dhibaato ka qoob culus oo ka xanuun badan kana argagax weyn tii yuusuf lagu shirrabay. waxaa suuragal ah sidii ay ahayd inay ka fududaan lahayd haddii ay la soo gudboonaan lahayd nin arrimaha nolosha iyo waayaha adduunyada waayo aragnimo u leh, kaasoo laga yaabo si uu naftiisa u badbaadiyo inuu garan lahaa. ha yeeshee yuusuf waa wiil gabana oo aan tabna aqoon taagna lahayn. waxaa suuragal ah inay haddana intaas ka fududaan lahayd haddii ay jiri lahaayeen gafaf uu galay iyo dembiye uu sameeyey, markaasoo uu mudnaan lahaa kadeedka ku dhacay iyo ba'a lagu falay. hase ahaatee wuxuu ahaa inaan aan ceeb lahayn oo wax lagu eedayn karo oo idilka fog, meel lagaga shakiyana aan weligiisba u dhowaan. waa ilmo carruura oo aan waqiis xumaani soo agamarin, isla markaasna dabacsanaan, dabeecadsan iyo degani ku caanbaxay. mar kale waxaa suuragal ah gantaalka ku dhacay haddii uu kaga imaan lahaa cid kale oo aan walaalihii ahayn amaba aan ku dhiig ahayn, guuldarrada soo gaadhay inuu dulqaad u yeelan lahaa oo ciilka, carada iyo murugada la soo darsay ay intaan ka yaraan lahaayeen. ha yeeshee waa yaabe, waxaa haleelay waa gamuunnadii walaalihii iyo gantaalkii warasadii aabbihii. waa kaa isaga oo goonyaha ceelka kolba mid isha la raacaya. hortiisa ayuu eegayaa, hase ahaatee waxa keliya ee u muuqdaay waxay yihiin biyo fadhiya oo uu ka arko maluuggiisa sida ba'an u silicsan iyo hooskiisa murugaysan. korkiisa ayuu dhugtaa, markaas buu isha la soo noqdaa, isaga oo ka cabsanaya mugdiga dhaafay ee awgii ay habeenka iyo dharaartuba ku masoobeen ama isugu ekaadeen. tolow muxuu ka fakarayaa? maxaa madaxiisa ku soo dhacaya? waxaa laga yaabaa inuu aabbihiis ku soo dhacay, dabadeedna ay xusuustaasi ku soo celisay muusoodkii uu waaberiga wejigiisa ku arki jiray iyo markii ay fiid noqoto sheekadiisii uu dhagaha u raaricin jiray. waxaa laga yaabaa xusuustaasi inay haddana ku soo celisay jacaylkii uu odagu isaga u hayay iyo haliilkii uu mar walba u qabi jiray, iyo hadda sida uu yahay, iyo hadda meesha uu ku sugan yahay, iyo hadda murugada uu huwan yahay. maya waxaa laga yaabaa gudcurka iyo ciriiriga meeshu inay cabsiiyeen, kolkaasna uu u jeelay iftiinkii dhalcada iyo bilicdii dayaxa, baymadowgii cirka, ilayskii barqinka iyo quruxdii guga. midda kale gaajo ayaa qabatay, ama wuuba gaajoon doonaa. muxuu kolkaa yeeli doonaa? halkee buu ka heli doonaa cunnada oogadiisa iyo naftiisa isu hayn doonta?
waxay ahaayeen waxyaabo isaga ku culus oo ka fakarkooda aan laabtiisu qaadi karin. balaayadu iyada oo mid ah ayaanba la xamili karine maxaad mooddaa iyada oo labanlaaban haddii ay kugu soo dul habsato. ha yeeshee naxariista eebbe ayaa ku soo dhowaatay. isaga ayaa guuldaradan ku shirrabay. isaga ayaana siin doona awood uu ugu adkaysto oo naftiisa kala firirtay isu soo celin doonta. waa kaa eebbe ugu waxyooday, samirkaasha oo dulqaad yeelo, aniga ayaa kaa korin doona dhibta aad ku sugan tahay oo wakhti kadib walaalahaa kaa adkaysiin doonee. markaas buu welwelkii ka ba'ay. markaas buu amarkii eebbe qalbi deggan ku dhowray. hugun baa u soo yeedhay. codad aan la kala sooci karin ayaa maqalkiisa ku soo dhacaya. dhagaha ayuu taagay. wuxuuna dhab u jeclaystay xubnaha jidhkiisa oo idili inay dhega isu wada rogaan. waa kuwa codadkii oo aayar aayar ugu soo dhowaanaya oo tartiib tartiib ugu soo kala soocmaya. waa jaanqaad dad, waa jar dhafta kabahooda, waa wahwahda eydooda, waa qolo socota ah oo safar ah, waa hididiilo soo qoslaysa, waa ubaxii rajada oo soo iftiimaya, waa ammintii badbaadada oo soo dhowaatay. kaalinkii ceelka ayay socotadii ku furatay. ninkii safarka waayeelka u ahaa ayaa mid kale u yeedhay oo ku yidhi, war safar dheer iyo daal baa inala tegaye, bal ceelkan wadaanta noogu rid oo nooga soo dhaami biyo aanu ku oombaxno, waxna ku karsanno, gaadiidkana aanu ka waraabsanno. codkaasi si wacan ayuu yuusuf u soo gaarayey. wuxuuna ula mid ahaa sidii biyo qabow badan oo qof lamadegaanka oon ugu baktiyey lagu qulaamiyey, laabtana loogu qoyey. ninkii baa wadaantii ceelkii ku gafray. yuusufna isla markiiba wuu iska laalaadiyey oo ku dhegay. ninkii baa naxdin afka kala qaaday kolkii uu arkay wiilka oo xarigga haysta oo quruxda wejigiisa dayaxa 14 aan laga garan. intuu qaylo afka ku dhuftay ayuu yidhi, alla bishaaroy bishaaroy, waa ii wiil buy. raggii safarka ahaa ayaa ceelka dushiisii ku soo ururay. yaab iyo dhabannahays baa ku dhacay. ugu dambaystiina waxay ku tashadeen inay addoon ka dhigtaan, dabadeedna ay Masar u safarsadaan kana iibsadaan. dhegaystayaal, waa barnaamijkii 9aad qaybtiisii 2, wuxuuna ku saabsan yahay sheekadii nebi yuusuf. qaybtii hore ee sheekadan sidaynu ku soo aragnay waa tii isagoo aan waxba garabsan yuusuf ay walaalihii ceelka ku tuureen, isagana tageen. niman safar ah oo Masar u socdaa waa kuwii ceelka ka soo saaray, dabadeedna ku tashaday sidii addoonta inay u iibgeystaan. haddiise ay lahaan lahaayeen qalbiyo naxa, dad wanaagsanna ay ahaan lahaayeen, intay u kurgalaan oo sheekadiisa dhuuxaan ayay reerkooda ku celin lahaayeen. ha yeeshee wuxuun bay ahaayeen qaar aadanaha ka mid ah oo dabeecadaha aadanaha leh. marmar buu dadku isu rogaa dugaag si bareer ah dilka iyo dhagarta ugu tartama, isuguna faana. gaadiidkoodii intay rarkii u dhammeeyeen ayay socotadii safarkoodii sii wateen. waddada ayay ku dhaceen ilaa ay Masar tageen. waxay u iibgeysteen suuqa addoonta, isagoo ah nin gob ah oo aan dhayalsi mudnayn iyo rasuul wanaagsan oo guri wanaagsan ka soo jeeda. waxay siisteen lacag aad u yar, shilimo faraha lagu tirin karo. si degdega inuu gacnahooda uga baxo ayay rabeen, maxaa yeelay waxay ka cabsanayeen arrintooda in la ogaado, sirtooduna ay soo dibad baxdo. dhabtii haddii xataa dhulka muggiis oo dahab ah ay siisan lahaayeen, marna taasi ma noqoteen wax ruuxaas qiimaha weyn leh u cuntama oo inankaa wanaagga badani uu mudnaan karo. wasiirka wasiirrada Masar ugu weyn ayaa iibsaday. isla markiiba wuxuu ogaaday inanku inuu ab iyo absaxan wanaagsan ka soo jeedo. markaas buu afadiisi ku yidhi, wiilkan aqoontiisa iyo deganaantiisa markaan eego, waxaan ku mala weynahay inuu yahay mid dabeecad macaan leh, qoys iyo isir aad u wacanna ka soo jeeda. sidaa darteed waxaan ku farayaa inaad soo dhowayso oo aad dhaqaalayso. waxaan kaaga digayaa sida adeegayaasha inaad u dagaasho ama sida addoonta aad u garaacdo. waxaan filayaa intuu koro oo uu barbaar noqdo inuu wax ina taro ama aynu wiil ka dhiganne. wuxuu yuusuf maalintaa kadib u jeestay aqalkii wasiirka inuu ka adeego. dadaal iyo aaminnimo dheeraada ayuu hawshii loo diraba ku qabtay. qoyskii uu ku biirayna waxay isu noqdeen ehel iyo qaraabo israba iyo derisyo isu ooman. dhibaatadii ceelka kolkuu yuusuf ka soo kabtay oo aqalkii wasiirka uu nolol deggan ku helay
ayaa waxaa mar kale soo food saartay dhibaato kale oo ay niyaddiisuna ku adkaatay isla markaasna uu eebbe ugu dhowaaday. Morgan waxay dhibaatadu kaga timid dhinaca bilicdiisa iyo quruxdiisa. waxay ka soo gashay xagga habwanaaggiisa iyo dhallinyaranimadiisa. wuxuu eeday quruxdaa oo intii muddo ah uu darteed u kadeedmay, hoogna uu ku qabsaday. horey baa waxaa loo yidhi ubaxa beeraha ku yaalli wuu badbaadi lahaa, lamana goosteen haddii aanay quruxdiisa ahayn. yuusuf hawshiisii ayuu aqalka ka bilaabay. maalinba maalinta ka dambaysa ayaa waxaa soo baxayey caqliga iyo garaadka ku duugan, aaminnimadiisa iyo dhowrsanaantiisa. markaas baa waxaa kordhay kalsoonidii uu wasiirku ku qabay. dadkiisii ayuu ka soo soka marsaday. meekhaanka dadka sharafta leh ee gobta ah ayuu gaarsiiyey, wuxuuna ula meel joogay oo uu ula dhaqmay sidii wiil la dhalay oo baari ah. wuu koray. carruurnimadii intuu ka xuubsiibtay ayuu barbaarnimo u dilaacay. markaas buu haweenaydii wasiirka mashquuliyey. isha ayay mar walba ku haysaa, hadduu baxaayo iyo hadduu soo hoyanayo, hadduu fadhiyo iyo hadduu taagan yahay, hadduu soo jeedo iyo hadduu hurdo, hadduu wax cunaayo iyo hadduu wax cabbaayo, hadduu soconaayo iyo hadduu meel iska fadhiyaba. waxaa u muuqatay quruxdiisa xaddhaafka ah iyo firfircoonidiisa xoogga leh. waxay dareentay jacaylkiisu inuu qalbigeeda ku koraayo, xididadeedana uu ku dhex socdo. waa isjeclaysiisay oo isu jilcisay. way hunguriyeysay. waxay istustay inay gacanta ku dhigto oo ay iyadu yeelato. hase ahaatee wax suuragal ah ma tahay. xaggee bayse u maraysaa? iyadu waa haweenaydii wasiirka. meekhaanka ay reeraha ku leedahay ma aha mid fudud. meekhaanka uu ninkeedu masar ku leeyahayna wax la dhayalsan karo ma aha. waxaa ku habboon nafteeda inay ka adkaato oo jacaylkeeda xakamayso. ha yeeshee mar walba oo uu u muuqdaba laabteeda ayaa u hinqata. waxayna dareentaa xoogga jacaylka oo wadnaheeda gelgelaya. waxaa ugu daran marka cidda aad jeceshahay ay kuu dhowdahay oo aad isku meesha ku nooshihiin si aadan heli karin. sow la mid ma aha awrta oonka la liidata ee u dhimanaysa iyada oo haamaha biyaha ahi ay dusheeda ku raran yihiin. markay walaacday ee ay wareertay, ogadeedana ay jiro ka dareentay, ayay go'aansatay inay bareerto oo ay u hoggaansato dhawaaqa jacaylka. ha yeeshee waxay ku tashatay nafteeda in aysan dullayn oo aysan ka soo degin meesha sare ee ay saaran tahay. markaas bay dabinna ay ku soo jiidanayso yuusuf u daadisay. nafteedana waxay uga muujisay waxyaabo ay suuragal tahay inay raganimadiisa dhaqaajiyaan oo uu xaggeeda ugu soo iilan karo. hase ahaatee gacan haadinteedii iyo sarbeebteediiba wuu ka jeestay. bilicdii iyo quruxdii ay u muujisayna indhaha ayuu ka awtay. yuusuf oo inan wanaagsan ah, aabba wanaagsani dhalay, mid wanaagsanina sii dhalay, miyay ka suurowdaa inuu wax xaaraana jalleeco ama ay naftiisu caasinimo eebbe u hogbato? miyay ka suurowdaa ninkii soo dhoweeyey ee qalbigiisa u furay, reerkiisana ku aaminay inuu khiyaamo oo afadiisa u daba maro? xaashaa lilaahi, waa maya. kolkii ay aragtay inaan loo soo jeedin ayay haweenaydii sii shidantay. jacaylkii baa ku kordhay. caashaqii baa maanka kala tegey. kolkaas bay la noqotay wixii ay sarbeeb ku weyday inay bareer ku hesho. waxay goosatay danteeda inay ku dhiirato oo waxa ay doonayso ay ku indha adeegto. samir dambe oo ay kari kartaa ma jiro. taag ay diidmadiisa ugu dulqaadataa kuma ay harin. way isdiyaarisay. nafteedii ayay geesinimo ku dhiirigelisay. awooddii ay lahayd iyo madaxnimadii ayay ilowday. waxayna isu rogtay gashaanti caashaquu miyirkii ka qaaday oo jacaylku dhan walba u xulay. qolkeedii ayay ugu yeedhay. isaguna halhaleel ayuu ugu yimi, maxaa yeelay caadadiisu waxay ahayd amarkeeda inuu fuliyo, wixii ay fartana uu fartoomo. gudaha kolkay ku ogaatay ayay daahyadii sii daysay oo halkuu iftiin yari ka soo geli jirayba ku awday. dabadeedna intay albaabadii wada xirtay ku tiri, adiga uun baan diyaar ku ahaye degdeg iigu kaalay. inkasta uu ahaa barbaar ladan oo wax walba oo uu ku hamiyi karay ay gacanta ugu jireen, haddana yuusuf wuxuu kaloo ahaa nin yaraannimo caanaha xikmadda laga durduuray kana dhergey. dhambaallada eebba guryihii ay ka soo bixi jireen nin ku soo koray. ninuu eebba sharafta nebinimada u darbay. eebbana isaga ayaa og kolba cidda uu fariintiisa u dhiibanayo. sidaa darteed waa nin uu qalbigiisu eebbihiis ku howlan yahay oo aan wax kale shiidaad u haynin.
wuxuu lahaa qalbi duursashada dumarka aan meeli uga bannaanayn, hawaawiga naftana aan u soo loodsamin. wuxuu ugu jawaabay, eebbe ayaan ka magan galay waxa aad rabto inaan kaa yeelo ama waxa aad iga doonayso aan kuugu hoggaansamo. waan iskala weynahay inaan khiyaamo wasiirka aan wiilka u ahay ee isoo dhoweeyey ina maamuusay. ma ahi ruux abaallaawo ah oo aan garan wixii loo galay ama dafira wixii wanaag loo taray. albaabada haddaad xirtay, daahyadana aad sii daysay, soo ma ogid eebbe inuu og yahay daymada sida aan muuqan isha wax loogu xado iyo sirta laabaha ku qarsoon. waan iskala weynahay eebbahaas inaan caasi ku noqdo ama rabidda naftayda intaan u hoggaansamo aan ku kaco wax uu ka caroodo. haddaan sidaas yeelana daalim baa noqon, daalimiintuna ma liibaanaan. baldhugo waa afadii wasiirka oo isku darsatay awood iyo gobonnimo, qurux iyo soo jiidasho. waxay u yeeranaysaa wiil adeegayaasheeda ka mid ah. kolkaas buu diidayaa oo ka sii jeensanayaa. baldhugo haweenayda uu iska weynaysiinayo ee uu ka dhowrsanayaa waa midda aqalka wasiirka inta amarada ka bixisa laga wada yeelo. waa midda wixii ay reebto halhalee looga reebtoomo. waa midda adeegayaashu ay hadal-la'aan warkeeda ku fuliyaan kuna addeecaan. waa dembi weyn oo aan qabkeedu oggolaan karin iyo gaf aad loo gansado oo aysan nafteedu dulqaad u yeelan karin. way carootay oo ciishootay. meel laga jiro ayay garan weyday. wixii ku dhacay ayay qaadan kari weyday. markaas bay damacday inay u gacan qaaddo oo ay waxyeelayso, sidaasna ay qabkeeda la jabiyey ugu aarguddo. isaga laftiisu wuxuu damcay inuu iska celiyo oo waxyeeladeeda uu waxyeello kaga jawaabo. ha yeeshee ma uu yeelin. ilayskii nebinimada ayuu naftiisa ka dareemay. xujadii eebbana qalbigiisa ayuu ku arkay. waxaa loogu waxyooday inaad cararto ayaa dirirta kuu dhaanta, nabadda ayaa dagaalka kaaga roon. waxyiga eebbe intuu u hoggaansamay ayuu isaga oo ordaayay xagga albaabka u baxsaday. iyana intay orod istaabatay ayay ka daba tagtay oo gashigiisii intay gacanta la heshay gadaal iyo xaggeeda u soo jiiday. markaas buu jeexjeexmay. albaabkii kolkuu gaarayba wuxuu kula kulmay wasiirkii haweenayda qabay oo hor taagan. waxay ahayd arrin shaki dhalin karta, tuhunna beeri karta. si degdega ayay haweenaydii u fakertay. waxay kaashatay sirta dumarka lagu yaqaan. yuusufse wuxuu door biday runta iyo sida ay dhabtii wax u dhaceen inuu u warramo. waxay tidhi, saygaygiiyow, yuusuf wuu kaa xishoon waayey, dumarkaagana waa ka xishoon waayey. wuxuu isku dayey inuu i wasakheeyo, wuu iskay damacsiiyey, wuxuuna u hogbaday inuu i kufsado. qof xaaskaaga xumaan la doonay in la xiro ama la xanuujiyo mooyee abaalkiisu miyuu wax kale noqon karaa? halkay iyadu beenta iyo masabidka kaga dhiiratay, yuusuf isagu runtii ayuu micinsaday. wixii dhacay sidii ay u dhaceen ayuu u sheegay. wuxuu yidhi, iyada ayaa iskay damacsiisay oo gashigayga inta ku dhegtay xaggeeda u jiidatay. hadalkaygu inuu run yahayna gashigayga ayaa markhaati u ah. arrintu iyadoo halkaa maraysa, saddexdoodiina ay kobtoodii taagan yihiin, ayaa waxaa la soo joogsaday haweenayda nin ay ilmo adeer ahaayeen. wuxuu ahaa nin caqli badan oo aad u garasho dheer. wixii la isku hayey ayuu si wanaagsan ugu kuurgalay, uguna dhegaystay. durbadiibana wixii dhacay ayuu dhab u gartay. markaas buu gartii ku naqay. gashiga yuusuf hadduu dhanka hore ka jeexan yahay, iyada ayaa run sheegaysa, isna waa beenlow. haddiise uu gashigu dhinaca dhabarka ka jeexan yahay, iyada ayaa beenley ah, isna waa runsheeg. kolkii la arkay gashiga yuusuf oo gadaal ka jeexan ayuu waagii dhab u caddaaday. indho wax lagu arko kii lahaaba xaqii baa u muuqday. yuusuf inuu dembilaawo yahay ayaa soo baxday. markaas buu wasiirkii afadiisii la hadlay oo ku yidhi, waxaani waa sirta haweenka lagu yaqaan. gef baad ku dhacdaye eebbe dembi dhaaf weydiiso. yuusufow, adiguna afkaaga hayso oo yaan sheekadaani intaynaan dhaafin, si aan loo qaadqaadin oo aanay dadweynaha ugu dhex faafin.